fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. waxaa weli kusii jirnaa default information kii ugu dambeeya mareynaa. Markaan waxaa wuxuu ku saabsan yahay inventory item default information ku saabsan yahay maintain tag sida caadiga naqaan default information then waxaa tagtaa inventory items. meeshaan marka waxaa noo muuqdo generalka joognaa default item class itemida isticmaalayno adig classka noocee waaye. waxaa ugu horeeyo stock item ma waxaa aniga alaabaa soo gadna si iibinayna miya inventory noo yaala alaabtaa soo gadna oo alaabaa si ay gadno si gadayna miya yani wana wax ka bedelayn. kan labaadna waxaa lahaa kan hoos ku yaalna waxaa master class kan waxay leedahay sub stock for example kan markaa isticmaalayna waxaa isticmaalaynaa sub stock tusaale camal raashin waxaa sameysanaynaa kadibna sabaa usii sameynaynaa sida bariis bur sokor waxyaabahaas sameynaynaa. kan ku xigana waxaa non stock item wax kale maaha for example alaabadan ku oolin camal oo aadan iibinin camal for example customerka alaabaa ku oolin camal usoo gaday waa kasii iibinay kaasaa isticmaalay. inta badan waxaa la isticmaalaa customerkaada markii alaaba uu u baahdo oo banaanka u dalbaysid aa la isticmaalaa. kan ku xigana waxaa description only kanna waxaa only infosyada loo isticmaalaa. hore usii soconno service kanna waxaa adeegyada marka la isticmaalayo kanna waxaa labor shaqaalaha waxyaabahaas waaye. kanna assembly alaabaa soo gadnay waxaa kasii bedelaynaa yani alaab nuuci ahaayeen waa kasii bedelaynaa waa sii gadaynaa. for example kan waxaa soo qaadan kartaa sida kuwa aluminium ka sameeyo alaabo kala duwan ay keenayaan yani wax dhameystiran fiican ay soo saarayaan sida kuwa roodiga sameeyo bur iyo saliid iyo ukun iyo waxyaaba isku darayaan iyo adi shay oo nuuc kale ka saarayaan oo lasii iibinayo. marka noocaas isticmaalayna assembly isticmaalayna. kana usii xigana waxaa activity item kana waxaa loo talagalay inta badan waxaa la isticmaalaa marka keeping employee time adi activity kala duwan la qabtay timeka markaa ilaalinayno timeka markaa xisaabeyna employee timeka waxyaabahaas inta badan la isticmaalaa. kana kan ugu dambeeyana waxaa change item kan ku kala waa ka duwan yahay oo waa ka duwan yahay markii aan rabno adhehe charge item adhehe ku kala waa ka duwan yahay markaan rabno inaan xisaabno freight charge iyo service charge iyo waxyaabahaas aan rabno markaan rabno inaan xisaabno aa loogu talagalay. marka intaas noocaa jiro marka aniga waxaa noo doortaa stock item hore aa usii soconno quant available meeshaan alaabta markaan rabno alaabta noo taala markaan rabno inaan ogaanayno markaan rabno alaabta noo taala aan rabno inaan ogaano tiradeeda iyo inta xaba taalo ma waxaa ka dhiganaynaa include purchase orders when calculating quant available. markii alaabta aad rabno tusaale 5 shay noo taalo 10 shayna waa noo dalban tahay ma waxaa markii alaab intaas noo taalo 15 shay ma dhaheynaa oo ma waxaa ku darsanaynaa alaabta noo dalban purchase orderka noo dalban ma ku darsanaynaa mise inta noo taalo haddii aan ku darsanayno kaliya saarayna haddii aan ku darsanayno Soomahan waa ka qaadaynaa yani inta noo taalo noo xisaabinaa. hore u soconno meesha waxaa qoran sales invoice receipt out of stock yani markii oo alaabtan naga dhamaanayso gudiga dhimad waa miha idiina dhihi kartaa. kana waxaa dhihi kartaa warm if inventory items is out of stock based on the quantity on hand. markii alaabta inta la igu irabto oo waxaa ka xisaabinaya inta xaba inta shay la ka xisaabinaya markaas idig. kan saddexaadna waxaa idigay markii igu irabto alaabta itaala iyo sidoo kale iyo alaabta ala heli karo iyo alaabta maqan soo wuxuu isku daraa kan saddexaad wuxuu isku daraa alaabta purchase order oo alaabta ku dalban iyo alaabta ku taalo. kan labaadna waxaa alaabta ku taalo bis ku xisaaba waa kana inta kala duwan on quantity on hand iyo on quantity available mid waa taas. kana waxaa sales out of stock saddexda shay camal leeyahay hadda oo ayana dhimad waa mi if item is based on the quantity on hand item is based of the quantity available. kana waxaa wax kale ma ahan kan ugu dambeeyna auto creation purchase number ayadana waxaa waaye number purchase number markii oo automatic noo abuura. marka intaan kan waxaa ii doortaa kan labaad waa mi kan labaad ii door intaan waxaa ordering waa hore u socono
GL accounts costing kan u horeeya waxaa ii doortaa GL sales waxaa ii doortaa maadaama sales tahay sales revenue no sales revenue kana waxaa ii doortaa inventory item waxaa ii doortaa inventory GL cost of sales cost of goods sold inta ii door sidoo kale costing ma FIFA isticmaalna fast in fast out last in fast out iyo average yani waa naqaanaa FIFA waxaa waaye shay ugu soo horeeyay ugu horbaxaayo liifana waxaa waa kan ugu dambeeya ugu horbaxaayo marka aniga average isticmaalin average door sidoo kale inta ka tagay inta wuxuu rabaa fried on account yani markii alaabta soo gadayna yani costi xamaali lacag nooga baxaaya lacagtaas inta ku xisaabinayna anaga account fried nooma samaysana laakiin purchase expense iska darsanayna inta badan fried purchase la iska darsadaa intaas waa mid tax and shipping intaan wax ma naga quseeyo canshuuraha waxyaabahaas waaye sidoo kale kana wuxuu leeyahay fill uu leeyahay waxaad taas iska darsan kartid naga bixi anaga wax ma rabno sida kii customerka uu fill u lahay iyo vendorka fill u lahay kana waa leeyahay pricing level ayadana alaabaha price level u kala samaysan kartaa wax naga anfacay ma lahan marka intaas kusoo gabagabeynaa qaybtan